madaxda hadda joogta sharciyada dadku siiyeen bay ku joogaayeen awood ay dalka ku haystaan kuma joogaan hadii waqtiga bisha shanaad uu dhamaado dawladda hadda jirtana xal laga waayo Soomaalidu inay tashato oo hab kaleeto ay ku sii noolaan karto ay ku tashato oo aanan sidaas ay siday moodayaan way iska jiitamaysaa dama ma jirto hore loo soo arkay mar dama ma jiitamayso ilaahay irinkiis talooyin kala dabcan khilaaf uu jiraya mar walba waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis in Soomaalidu isu timaado mar dhow oo la yiraahdo aan tashanno oo tala midaysan oo loo dhan yahay meesha ka soo baxdo la isugu calool fidow yahay oo la mid ah kuwii hore u dhacay 2022 oo dawladnimada noogu dhisbeen haddana waxaan rajaynayaa inay sahlan tahay oo arintaas ay bilan tahay waxa kaliya oo ku soo beegmay shirar aan ahayn shirar runtii dhab ah oo intii la yiraahdo waa la shiraya laakiin haddana shaqo kale iska socoto Soomaalidu taas ma qabatay la tahay waxaan dhowreynaa mar in lagu celiyo in dawladda federaalka iyadoo loo dhayahay lala hadlo waxa kaliya ku daraya marka taana si ogaadaan shirkan dad baan meelaha ka maqlaayay waxa ka soo bixi doona eedayn iyo cataw ma aha anu hadda safar uma soo galay inaan eedeyn hadda eedeyn anagu halka joognaa eedeynay shirka waxaan rabnaa inay ka soo baxaan wax la taaban karo lagu shaqeeyo waqtigaas nagama go'o in anaga dad eedeyno oo meelaha fariimo ugu dirno wax sax aan rabnaa hadii ilaahay diyaarna waa u nahay kaarteen aan ogoleyn inuu hoggaansamaan waana ceeb nagu taalo aan u baahanahay inaan iska tirno mar raba inaan hoos u galo wax badan oo aan u deynayo ayaamaha shirarka ay socdaan iyo nuxurkiisa marka gudaha loo galo doodaha ku haboon aan ka dhiibi lahaa laakiin hal khatar baa ku soo biirtay 13 sano wixii ka horeeyay 10 sano ka horeeyay oo ah in loo bareero in la yiraahdo sharciga ma shaqeynayo oo la yiraahdo isteediyada iska jooga runtii Puntland 27 sano waxay ku jirtaa madaxdu marmar waa iska jeceshaa inay loo xijiitaan laakiin shacabdaha maya maalin kuma dirsan kartaa maxaa u diiday isteediyada hadda taagan inay iska joogaan haddii siyaasiyiintii iyo shacabkii deegaankaas maxaa u diiday inay yiraahdaan sharci darro kuma wada joogi karno maxaa yeelay haddaan sharci darro ku wada joogno waxaan xasuusanaynaa wixii ka horeeyay dowladda Soomaaliya ayaan xasuusan doonaa hadii ilaahay